رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta jecelahay inaan dadka xasuusiyo hore waxa la inoo yiri ilowsho dhawaa maamulba wixii xasuuq ka dhacay dalkan raadkiisa qoyanaa ayaan iska ilownaa waa ogtiino maalin uu taxala xusiyay Yurub ay xusisay France lagu xusiyay dadkii ka dhintay lagu xasuuqay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta waxa weeye 27 July waa maalintii dadka gasiira lagu xasuuqay ee israahaanta inta guriga laga soo baxay reer ahaan loo dilay waa soddon guuradii weey waa jiraan xasuuq badan oo ka dhacay Hargeysa Ceergaaw meel kasta ka dhacay laakiin kan taariikhdiisa ay hayaan maalintan waxa ahayd 17 waxay ku soo beegantay soo maanta markabkii xoolaha ee ka baxay Berbera oo ilaa hadda xadnimo yahay waxay isweydiin leh iyo xasuuqa ka madaxaha yaa fuliyay waxa fuliyay Maxamed Saad Bare maanta xoolaha Soomaaliland hala xanimo yaa yiri waxa weeye farmaajo waxa weeye history repeats itself waxa weeye adeerkii waa Maxamed Saad Bare سموه ما أنت حبدي تسوي نلك سوي قارو هاي معيشتي أيوه إنك لا تقالمية وهذا شرط تيجي لها ممكن مدحوني سودقي وردتك كلا صار وحليه دون صوماليه كلا صار حسن الشيخ باها مدحويني شيخ حسن باها شيخ شريف باها وليجيني يا الهين معيشة سومال لهن لقى ما تقالمية ما عنده حوي وحتى سنة توسسها إن سيجارة وفرماشيو كوريدا وماشي كو هايستا إن الله دعالم يعني وحلا يابلا لكن نيك وزير كأله يروح الدنيا إنه نافق حوالها بقى وبقول أو كقاطه $1 وهذا صدح مليون حوالها حبان $1 مليون بس حري سنة طبعا كنت أسأل جروك ماشي فديا inay yihiin dad xaalufinaya oo doonaya ummadda lacagteeda ursadaan badii bay iibiyeen oo ogtihiin Norwegian iyo laga iibiyay shisheeye waa ogtihiin ciidamo shisheeye keeneen marka waxa weeye group u soo talagalay inay Soomaaliya haddana dagaal sokeeye geliyaan iyo isla aarsada xaaluf